رئيس وزراء waxaan kaa rabnaa dawladdaada inaad si buuxda qorshaha ugu darsato sidii isbedel dhab ah loogu sameyn lahaa dadka naafada ah boqolkiiba 20 bulshada ka mid ah oo dib u dhacsan oo aqoonta ka dib u dhacsan oo aan shaqo haysan dalka dhan bay liability ku tahay marka waxay u baahan tahay in barnaamij dhab ah loo maaragtay loo sameeyo oo ku talagal ah sida loo horumarin lahaa dadka naafada ah haddii maanta boqolkiiba 20 kaas boqolkiiba 10 ka mid ah kor loo qaado oo shaqo helaan canshuur bay bixini maxay ahayd dalka horumarkiisa ka qayb qaadan ganacsiye abuuri shaqay abuuri bariga anigu aan Kismaayo imid yaa leeyahay maxaad hotel ku falaysaa hotel waxaan idhi hotel baan sameynaya dad baan shaqaaleynaya horta qof naafaa inuu wax qaban kara hal la arko marka insha Allah ta'ala ra'iisul wasaare waxaan ka rajeynaa lacagtii kuma dhahayno wax kale ma ku dhahayno xuquuqaadkooda hal la cadeeyo waaxyaha wasaaradaha meelaha dhan wasiir waa lagu heestaa qabiilada kugu dhegdhegan waa ognahay laakiin waxaan rabnaa inta ka hooseyso inaad tiraa wasaaradan oo wasaarad oo naafa ka shaqeyn ma jirtaa mase ma jirto waxaan ahay ninkii aasaasay iskuulada wuxuu ku bartaana caruurta maqalka la ee Soomaaliyeed 20 sano ayaan ku dhex jiray waxbaridooda waxaa hadda gacanta ku hayaa 1,100 arday oo caruur ah oo dhawal ah waxay u baahan yihiin inay helaan xuquuq waxbarasho oo la mid ah midda ay haystaan caruurta kale ee wax maqasha ayay u baahan yihiin marka farad falna wax duugay ra'iisul wasaare waxaan ka codsanaynaa hay'adana si ay ula macaamisho hay'adaha kale ee dawladaha kale inay mataqaana ayada la xoojiyo si dawladaha kale u xoojiyeen hay'adaheeda dawlad walba hay'adda waa xoojis talabaad waxa rabnaa mudane rabaa inaan codsado waliba codsi maantana waa baryo muxuu ahaa waxaan rabnaa inaan sameeyno waxa dhacday special need-ka xafiis special need la sameeyo madaxweynaha mid buu leeyahay rag baa fadhiya banaadir mid buu leeyahay rag baa fadhiya tan waxaan ka bareenaynaa haweenka siiso waa maasantahay walaashay waa qofka insha Allah shaqeynaya ama xafiiskan joogi doona insha Allah waxaan ka dhigaynaa gabar marka inaad saas ula socotaan taa codsiga hore laga aqbalay markaas marka intaasu waa qodobka labaad runtii hay'adda waa run waxyaabaha waxa xalis u baahan waxa weyn waxa hadii asaga la xaliyo waxa kale ay xalismayaan ba fiican in focus kala saar waxaan ku tashan doonaa oo ballan qaadaynaa insha Allah budgetka la dejinayo dawladdu ay dejinayso in ay hay'adda naafadu ay ka noqoto qayb oo maxaan ku dhahay hay'ad la og yahay oo shaqadeeda qabsata ay noqon doonto hadii la yiraahdo oo aan aad xoog u saarayna xoojina ayada inta ka horeysa in ayadii aan isku dayno si kastoo loo sii dhisi karo in loo sii dhiso in cidii hadii la yiraahdo aan la kaashan karno in aan la kaashirnay inay la xoojiso in dadka la sii tababaro in loo helo dad expert ah waxaan ka sii shaqeyn kara waan madaxdeeda iyo annaga si gaar ah inaan soo aragno oo aan qaybta technicalka xafiiskan iyo ayaga ay si gaar ah u wada shaqeeyaan ayaan isku dayi doonaa hadii la yiraahdo si loogu helo mechanismkii wax loogu qaban lahaa oo lagu support gareyn lahaa hadii la yiraahdo taasaan ka shaqeyn doonaa ilaa idankiis waxaan arinta muhiimsan oo ah 1,100 arday oo runtii dhagool ah oo uu sheegay walaalkeen waa very important report ah oo waliba aad runtii muhiim u ah waaye marka waxaan rajeynayaa hadii la yiraahdo xukuumadda markaan sameeyno I hope inuu wasiirka waxbarashada ugu horeeya inaan soo dhex fadhiisino teamkan oo uu arko duruufahooda oo uu maxaan ku dhahaa amaan amar siino oo aad la kulantaan oo aragtaan I hope inuu qof micno leh oo oday ah oo waxbarashada wax ka garanaya oo waxa tihiin garanaya insha Allah inaan keeno marka in taasna la jaan qaado oo qayb ay weyn ay ka noqdaan ayaga priorities kala siiyo in ardaydaas habkii wax loo bari lahaa iyo habkii loo hayn lahaa intaba hadii la yiraahdo